السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wiilkan yar aad arkaysaan waxaa la nool yahay hooyadiis markastana wuxuu dareemaa faqri iyo ina qoyskiisa yihiin dad faqara ah ee faqri ku nool maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadiis u yeeray weliba qaylo dheer isagoo oranayo hooyo weliba qaylo dheer hooyadii ayaa dharbaaxday wajiga ugu dhufatay wuxuu ku yiri hooyo waa markii ugu horeysay oo dharbaaxay ugu dhufato waxaan jeclaan lahaa inay dhab ka tahay maxaa yeelay waxaan sameeyay waa wax qalad ah waxaana mudneed inaad imarsiiso ciqaabtan ka weyn wiilkan yar hooyadii waxay ka shaqaysaa geedaha intay hooyadii soo goyso ay ka samaysaa ama ka qortaa alaabta sida koobabka suxuunta iyo wax la mid ah habeen iyo maalin waxay ka shaqaysaa si uu wiilkeedu wax u barto hal habeen ka mid ah haweenahana oonu ku saaxin gaajo aroortii markii la soo gaaro waxay soo doosisaa wiilkeeda si uu u aado iskuulka waxay u diyaarisaa quracdiisa way siisaa dabadeedna waxay u kaxaysaa iskuulka wiilkan yar wuxuu ka xishoodaa inuu yahay faqiir ama ka soo jeedo qoys faqri ah mararka qaar markay wadooyinka jam noqdaan ama ay cariiri noqdaan ayna istaagaan gawaarida iyo gaadiidka oo dhan oo wadada maraya wiilkan yar iyo hooyadiis waxay wadaan mooto dabadeedna waxaa soo garab istaaga xilliga ay halkaas taagan yihiin arday ka mid ah ardayda isku fasalka yihiin gaar ahaan inta badan jidka waxaa kula kulmaa gabar ay isku galas yihiin marka ay soo eegto waa ku jeesta asagoo ka xishanayo inuu sii eego dabadeed waxay imaadaan iskuulka wuxuuna ka degtaa mootada kadibna iskuulka ayuu galaa marka uu galo galaaska fasalka saaxiibtiisa waxayba ka dhigteen majaajilo waxay ku tuuraan fargan dabadeed markay arkaan inuu xanuunsado ayay ku qoslaan fasalku wuxuu ka yahay dhalo lagu taabado lacag la'aan dabadeed wuxuu bilaabaa inay ardaydu la dagaalo durbadiina waxaa soo carara macallimiinta iyo maamulihii halkan ku kala celiyaan marka uu guriga ku soo noqdo hooyadii waxay ku sugtaa ilanka guriga meel u dhow iyadoo caraysan sababtoo ah waxaa loo soo sheegay in wiilkeeda iskuulku ku sameeyay dagaal markii uu soo galay guriga hooyadii waxay ku tiri halkan imaaw mar kale ayay ugu celisay halkan imaaw codkiisa intii kor u qaaday ayuu ku yiri maxaa jiro intay istaagtay ayay dhigtiisa qabatay waxayna ku tiri waxaan kaaga digayaa inay ugu qayliso codkaada kor u qaado markaas ayay weydiisay maxaa maanta iskuulka ku soo samaysay maxaysna dharkaada sidan ugu jajaxan yahay ugu saqeeyay waxaa soo gashay dagaal Soomahan intuu hooyadii gacmaheeda iska furfuray ayuu ku yiri adiga ayaa waxaas oo dhan sababta u ah ardaydoo dhan waxay ugu dhahaan wiilka hooyadiis geedaha jarjarto adiga ayaana sabab u ah maxaa yeelay waxaan ahnay faqara saaxiibtay iskuulka waxay ku tagtaa gaari anigana waxaan ku tagayaa mooto qaraabtay oo adiga leedahay maanta waa ciida dalka Shiina dhammaan asxaabtaydoo dhan waxay u dabaaldegayeen maalintaani iyagoo xiran dhar cusub laakiin aniga maxaan haystaa hooyadiis ayaa ku diiday weliba cod dabacsan oon kalgacayl ku dhahan yahay maxaad iga doysay wiilkayda inaan sameeyo markaas ayuu ku yeerin hooyo si xoog leh u shaqeey ilaa aan ka noqono dad tujaar ah hooyadii ayaa ku diri hooyo waxaad og tahay in si fudud lacag loo helayn laakiin berita ayaan israacayna oo soo arag waxaan qabto wuu ka aqbalay wuxuuna ku yiri hooyo waan ku raacanayaa beri aroortii ayay tooseen waxayna isku raaceen shaqadii wiilkii ayaa eega hooyadiis shaqada ay qabanayso naftiisa asagoo la hadlayo ayuu yiri aniga waxaan mudanahay in la iqraaco oo la ciqaabo maxaa yeelay waxaan iska indha tirey abaalka ii galaysa hooyaday waxaan ku dhahay si adag ku shaqeey mana arkayo shaqadan wax ka adag oo hooyaday qabanayso dhab ahaantii ma jirto tani shaqo ka adag taban karo hooyaday aniga darteed ayaa shaqadan adag ku qabanaysaa waa kan wiilka yaraa wuxuuna isku dayayaa inuu dhulka ka qaado wal ay ku jireen dhagaxyo qaadis iska taa hadda waa dhaqaajin karin waaye dabadeed hooyaday ayuu timid waana qaatay qiira ayaa gashay wiilka wax yar kamid waxa uu mid hooyadii waxaanu ku yiri hooyo ma ku caawin karaa hooyadii ayaa dharbaaxtay wajiga u dhufatay si tartiib ah waxayna ku tiri kanaaca ayaan ka dilay dabadeed hooyadii ayaa u yeeray wuxuuna ku yiri hooyo lamana sahadlin mar kale ayuu codkiisa sare u qaaday wuxuuna ku yiri hooyo dabadeedna u soo jeesaday wuxuuna ku yiri iga raal noqon markaas ay hooyadii ku tiri
hooyo waxaan ma qaadi karaysay mana ii caawin karaysay ee kaliya waxaad samaysaa si xoog leh wax u bar wiilkayda. Dabadeed hooyadii uu soo raacay waxayna ku soo laabteen guriga. Maalintii xigtay sida caadada ahayd asaga iyo hooyadii waxay isku raaceen iskuulka. Mar kale ay wadada kula kulmay saaxiibadeedii oo gaari saaran lana socdo hooyadeed iyo aabaheed, laakiin markaan wuxuu arkay hooyadeed iyo aabaheed oo isku buuqaya. Inkasta oo ay taajiriin yihiin haddana dhexdooda ma taalo farxad. Intuu kasoo jeestay haddaba daawasheena qiimaha badan halkan ay ku dhamaatay qisadii quruxda badneed ee dhex martay wiilkan yar iyo hooyadii. Balse intaan muuqaalka kasii bixin daawadayaasheena sharafta leh iga dhagaysta nasaaxada. Hooyo iyo aaba waxay ka mid yihiin nimcooyinka ugu waaweyn ee Alla nagu manaystay. Markastana waa kuwa adkeena jooga, gaar ahaan hooyo. Haddaba maxaan u qadarin la'na? Waxaan idin rajaynayaa in aad ixtiraamtaan hooyooyinkiina. Isku daya inaad cid kasta gaarsiisaan muuqaalkan. Sida oo kale muuqaalka like saar si aad noo dareensiiso inaad ka heshay muuqaalkan. Haddii aad channelka cusub tahay soo dhawow. Haddii aad hore u joogtay waa ku mahadsan tahay la socodkaada wanaagsan. Waxaan idin